41 muwaadin oo sanado kala duwan ku xirnaa xabsiyo ku yaala wadanka Indiya ayaa dib loogu soo celiyay dalkooda hooyo ee Soomaaliya kadib dadaal dheer oo ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ku bixisay inay dib u helaan xorriyadooda isla markaana ay dib ula midoobaan eheladooda waxayna ku eedeysnaayeen falal burcadbadeednimo. muwaadiniinta ayaa waxaa dalka Indiya ka soo waday xeeraryaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir waxaana sidaas ku dhaqan galay heshiiskii ay kala saxiixdeen dawladaha Soomaaliya iyo Indiya ee la xiriiray isdhaafsiga maxaabiista si loogu muujiyo muwaadiniintan laga soo daayay xabsiyada dalka Indiya sida dawladda Soomaaliya ugu faraxsan tahay inay la qaybsato dareenkooda ku aadan inay dib u helaan xorriyadooda isla markaana ay dib ula midoobeen eheladooda. waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka wasiiro xildhibaano iyo qaar ka mid ah ehelada muwaadiniinta dib loogu soo celiyay dalkooda. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdulla Cawad oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa xukuumadda Soomaaliya uga mahad celiyay dadaalka ay ku bixisay in dib ay u helaan muwaadiniintan Soomaaliyeed xorriyadooda. dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxa weeye gurnimadii laga saaray oo gobonimadoodii loo soo celiyay waxa weeye qofku haddii uu xabsi ku jiro oo xabsiga laga soo daayo ama hadduu qaamaysan yahay qaanta laga bixiyo waxa ugu weyn qof muslim loo tara weeyaan. arrinkan gudasho waajib kaliya ma ahane waxa weeye arrin Ilaahay loogu dhawaado weeyaan. dadaalka badan oo ay dawladdu ka samaysay guud ahaanteedu ama ha ahaato wasaaradda cadaaladed ama ha ahaato wasaaradda arrimaha ama xafiis xeeraliye guud ha ahaato hoggaanka ra'iisul wasaaraha waxa weeye dhammaanteenba maanta farxad weyn ayay noo tahay annagoo shacabka Soomaaliyeed magacooda ku hadlayna mudane ra'iisul wasaare waxaan leenahay jasaakumullahu khayr ilaahay ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo. gudashada waajibkiina idinkagama mahadnaqayno laakiin tani waa Ilaahay u dhawaanshiyo weeyaan. ajar baad ka helaysaan Ilaahay baad ugu dhawaanaysaan dad Soomaaliyeed baad xorriyadooda u soo celiseen inta dhimanna ra'iisul wasaare waa kaaga baahannahay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xusay in dawladda Soomaaliya aysan marnaba seexan doonin inta muwaadin Soomaaliyeed ku xiran yahay dalka dibadiisa qaybta ka hartay maxaabiista laga soo daayay dalka Hindiyana la keeni doono dhawaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya. waxaa hartay 76 kale oo wali Indiya ku maqan oo aan keeni doono haddii Ilaahay yiraahdo dhamaadka bishan February. arrinkan Indiya waxa uu uga duwan yahay waliba kuwa hore waxa uu tilmaamayaa wada shaqayn buuxda ee dhammaan hay'adaha dawladda. xukuumaddu waxay la saxeexatay heshiis dalka Indiya. heshiiska waxaan u geynay guddoonka baarlamaanka. guddoonkii waxay ka soo ansixiyeen baarlamaanka kadib ayaan ula noqonnay dawladda Indiya sidaasaa maxaabiista lagu soo daayay. in dhallinyaradana ay yimaadaan waxaa marka saldhig u ah wada shaqaynta hay'adaha oo dhan ee dawladda. shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan inta dhallinyaradeennu ay dalka dibaddooda ku xiran tahay sidaan waagii hore idiin sheegay ma nasan doonna haddii Ilaahay yiraahdo. inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo dayn doonnaa. kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhawaada. muwaadiniintan laga keenay dalka Indiya ee ku xirnaa sanadaha kala duwan ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee dib looga soo celiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa waxaana horey maxaabiis looga keenay dalalka Seychelles iyo Ethiopia. waxayna qayb ka tahay qorshaha dawladda Soomaaliya ku xoojinayso sharafta muwaadinka Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.